shirkani maanta uga furmay magaalada Baydhabo ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa lagaga hadlayay iskaashi ku qotoma arrimaha horumarinta dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed maadaama ay yihiin laba dowlad goboleed oo wadaaga xiriir dhaqaale iyo mid xuduud deegaan intaba madaxweynayaasha labada dowlad goboleed ee Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa si wadajir ah u daafuray shirkan waxaana ka soo qayb galay shirkan qaar ka mid ah xubnaha labada dowlad goboleed ee Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed safiirka midowga Yurub u jooga Soomaaliya Nicholas Baralanga iyo safiirka Sweden u jooga Soomaaliya iyo waliba wakiilo kale ee ka socda taageerayaasha Soomaaliya ama beesha caalamka ajandayaasha shirka intuu socday lagaga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sugidda amniga deegaanada labada dowlad goboleed arrimaha dib u heshiisiinta bulshada iyo waliba kobcinta dhaqaalaha iyo wax ka qabashada fatahaadda soo laalaabatay webiga Shabeelle shirkan oo ahaa mid saacado qaatay ayaa markuu soo laaday kadib waxaa saxaafadda faahfaahin kooban ka siiyay ujeedka shirka iyo waliba ajandayaashii ka soo baxay shirkan lagu qabtay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan iyo waliba madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo shir saxaafadeed si wadajir ah warbaahinta ugu qabtay magaalada Baydhabo shirku markuu soo laaday kadib waxaana si wadajir ah u sheegeen labada madaxweyne in shirkan uu muhiimad weyn u lahaa labada dowlad goboleed waxaana hadalka ku hormaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa labada dowlad goboleed oo ay kaalmeynayso oo ay xoojinayaan EU-da oo arrimo badan aan uga hadalnay aan ku qabanay degmada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayadoo ay nagala soo qayb galeen safiirka EU-da iyo safiirka Sweden oo uga hadlaynay arrimo badan oo quseeyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Hirshabelle arrimahaas oo kamid ah amniga iyo dib u heshiisiinta sidii loo heli lahaa labada dowlad goboleed ay u heli lahaayeen amni iyo dib u heshiisiin oo la isuguna furi lahaa wadooyinka dadka labada dowlad goboleedna ay u heli lahaayeen xuquuqda amni oo asaasiga ah ay leeyihiin waxaan kaloo ka wada hadalnay kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka sida beeraha xoolaha kalluumaysiga sidii loo horumarin lahaa ayagana oo dadka xoololeyda ahna ay u heli lahaayeen xoolahooda sidii loogu horumarin lahaa beeraha iyo wax soo saarkiina loo xoojin lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo furi lahaa wadooyinka loo samayn lahaa business iyo dhaqaalo dadka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay dhaqaalahooda uu ku soo kabto waxaan kaloo ka wada hadalnay arrinta fatahaadaha webiyada oo ah in soo noqnoqotay muddo dheer ku soo noqonaysay deegaanadan Shabeelle sida Hirshabelle iyo Koonfur Galbeedba in xal waara loo helo fatahaadaha xal waara loo helo webiyada biyaha ay keenayaan in xal waara loo helo ayaan ka wada hadalnay waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii dadka barakacayaasha ayagana loogu heli lahaa xal waaro sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay oon ka heshiinay in xal loo helo dhismaha maamulada hoos u daadejinta golaha deegaanka in deegaanada dhismaha golihii deegaanka hoos loo daadejiyo degmooyinka dhan loo suubiyo golo deegaan oo ay shacabka leeyihiin oo degmo kasta aan gaarsiino intaba waa ku heshiinay si fiican uuna ku dhammaaday shirki waxayna ballan qaaday EU-da iyo dowladda Sweden ba inay maalgelin ku sameeyaan intaasoo mashaariic ah aad iyo aad u mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Hirshabelle waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo runtii si fiican aniga wafdigay ugu soo dhaweeyay waxaa kaloo mahadcelinayaa safiirada EU iyo Sweden oo runtii shirkan qabashadiisa iyo dhaqangalkiisa qayb weyn ka qaatay sida madaxweynuhu uu sheegay arrimaha aan ka wada hadalnay oo xagga amniga dib u heshiisiinta sareynta sharciga oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo booliiska wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha kalluumaysiga iyo horumarinta ganacsiga iyo inaan dadka laga mataqaana tabarta daranne dadka soo qaxay dadka displacedka ama mataqaana barakacayaasha dadka soo noqday inaan ayagana laga tegin oo safety net loo sameeyo runtii shirkaas muxuu ahay oo runtii aad arrimahaas loogu falanqeeyay si guul ayuu ku dhammaaday
dooxadan webiga Shabeelle oo maro oo runtii ah dhaqaalaha Soomaaliya meesha ugu muhiimsan una ah saldhigga cashuurta ee hadda dawladda federaalka ay ku socoto haddii la xoojiyo oo dhaqaalaheeda waxa laga qabto oo muxuu ahay ganacsigeeda la horumariyo waxay qayb weyn ka tahay dawladnimada iyo xoojinta horusocodka Soomaaliyeed runtii arrimahaasna waa la isla qiray waa la isla qeexay waxaan qaadi doonaa tilaabooyin wax ku oola oo lagu xoojinayo horumarka dhaqaalaha dooxadan labadan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir aad u mahadsantihiin Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Somali News magaalada Baydhabo.